cabdishakuur xaliima waa laba ruux walaalo oo dhawaan ka kala qalin jabiyay jaamacadaha Banaadir iyo Muqdisho waxaa qalin jabisay dabcan arday fara badan balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee heerkan ku soo gaareen iyo waliba guushan cabdishakuur iyo waliba xaliima yaa ka dambeeyay guushooda waa sababta ugu weyn ee halkan aan u imid oo ah tuuladan lagu magacaabo Muryaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sheekada qoyskan waa mid ku soo bilaabatay dhabar adeeg iyo dadaal muddo soo socday ugu dambeyntiina noqday mid miro dhala taas waxaa guntu u xiratay oo wadadeeda si adag u qaaday hooyo Faadumo Saalax Abtiyow oo ah hooyo beeraley ah muddana tabcanaysa qudaarta qeybaheeda kala duwan sida yaanyada iyo mooska waxayna ka soo qayb qaadatay korinta iyo waxbarashada 8 caruur ah oo kaligeed baaska waalidnimo u buuxisay hooyo walba waxaan jeclahay inay anoo kale ilmad noqoto hooyo sababtoo ah aniga anoo sokor qabo hore iuma heenin ilmahan daraadood markuu aabahooda iga dhintay ayay igu dhacday hooyo waxaa igu dhacay dhiigkar waa fahantii umaleynaa labadaas wax igu daran male sokorta la dejinaa markii la dhaha dhiiga kaco dhiiga la dejinaa markii la dhaha sokorta kacdo ayadoo taas ay jirto ayaan dhaxda u xirtay ilmahayga hooyo walbana waxaan jeclahay sidaas islamada inay sameeyso ubadka Soomaaliyeedna waxaan ayagana aan maxaa la dhahay si aan ayagana ku wacyi gelinayo sida kuwayga baari ay iigu noqdeen inay ayagana baariyaal u wada noqdaan oo waxbarashada u hoggaansamaan ilaan maanta geedkan marka abuurtidood waraabisid ayaa bari miro ka guranay waqti adag iyo waayo rafaad iyo dib kadib maalmo badan oo qoyskan ku rajo weynaayeen inay timaado maalintani oo kale si wada jir ahna dabaaldegooda ku qaataan beertii qaybta ka soo qaadatay inay guuleystaan cabdishakuur xaliima inaan wax barano oo heerkan soo gaarno oo maanta koofidan aan watay cilmiga aan xambaarsanahay alla inay tasako waxa aan ku helay hooyo sababteeda waaye markii laga soo tago in foom walba ayada nagu bixi jirtay iyo dadaal walba ay nagu bixi jirtay waxaan ka sii aan la iloobi karin dhiirigelinta na dhiirigelin jirtay in aan heerkan aan soo gaarno ayadaan wax walba noo ahayd anoo oo talo la hooyo talo fiican isiiso waxay igu talisay in aan barto kulliyadda beeraha maadaama markii koo hamigay oo ahaa in aan wadanka waxa aan u qabto aan soo saaro shidaal bedelkeed in aan dhir soo saaro hooyo talo fiican siisanayna waxaan qaatay hooyo taabi aan qaatay alxamdulillah maanta waan ku faraxsanahay in aan bartay kulliyadda beeraha waxaa ku doortay horta wiilka beeraha bartay aniga waa aaga horeeyay 2 sano waxaana go'aansaday inaan barto kulliyadda caafimaadka sababtoo ah meeshan hadda aan joogo gabar walaashay oo habartay dhashay oo qalal qabtay ku gubatay iyadoo jiko ku jirto habeena casho ee karinayso ayaa dab ee ku dhacday iyadoo qalal meerkii ka tagay dabka digsigii iyadoo markaas dalcaysa saliidii ee kula dul dhacday digsigii dhinacii gacanta dhana gubatay marka gargaaraha xamar loo keenay isbitaalaadkii xamar markaas ay hadda si u badan yihiin ma jirin waa yaraa marka isbitaal gargaar fiican u sameeyaa loo waayay meel oo ku taala siliga ah Amerikaanka oo Burundi waagu joogi jiro isbitaalka la galay markaas sidii oo maadaama meesha af aan qoonin ee wax dadka dhayayeen ee daaweynayeen markaas aniga go'aansaday anoo afka Soomaaliya aqaano dadka aan odayga af Soomaaliyiin si muddo wacnimo xitaa ina uu adeeg bulshadeeda oo gobolada ku dhibaataysan meesha aan ka soo jeedo abaalka waalidiinta maaha mid marnaba la gudi karo balse caruurtu marka ay helaan wax kasto ay jecel yihiin haddana waxay u mahadceliyaan waalidka iyagoo dareensiinayaan in marnaba booskaasi aanan la buuxi karin hooyo waliba waxay jeceshahay horumarka caruurteeda balse kuma sii jirto hooyo Faadumo oo duruuftani ku soo korisay caruurteeda waxna ku bartay Hanuus Xaaji Astaan TV Shabeellaha Dhexe